بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waxaan isku dayayaa war kooban inaan ka idhaahdo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala kitaabkan aynu masaajidda ku quruxsanno ee meel kasta yaalla saddex qodob oo keliya baan tilmaami doonaa markaa kitaabkani ugu horeyn waa alle kalaamkiisii khalqiga ama kownka ama universe-kan aynu joogno dhammaantii waa ilaahay makhluuqaadkiisii waa ficilkiisii kitaabkanina waa ilaahay hadalkiisii subxaanahu wa tacaala shayga labaadan wax ka odhan doonana waxa weeyaan mar labaad kitaabkani waa mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu soo siiyey waa waxa konfisgaraynaya ama caddaynaya duruuf garaynaya inuu nebi maxamed nebi yahay xagga alle ka yimi oo rasuul ah oo diin wada halka ambiyada kale mucjizaad xisiya inta badan la siin jiray nebigu mucjizaad badan waa la siiyey laakiin kanaa ah ka rasmiga ah waa shayga saddexaad aan rabo inaan tilmaamo waxa weeyaan madmuunka kale uu kitaabkani waxa uu sido waa manhaju xayaa waa bini aadamku siduu u noolaan lahaa ama waa nolosha siduu u isticmaali lahaa cidda wax samaysay dunida aynu naqaano mishiin cusub gaadhi cusub wax cusub marka la keeno kataloog baa la socda kuu sheegaya how to use it marka hore sidaad waxaan u xidhxidhi lahayd marka dambe saad u isticmaali lahayd ku direct garaynaya oo gaadh garaynaya ilaahay isagaa ku abuuray kanna waa kataloogii lagu soo raaciye loogu talagalay nolosha tan saad u isticmaali lahayd maadaama waqtigu kooban yahay sheekh saciidna aan qayb u reebi doono waxaan isku dayayaa saddexdaa qodob oo kooban inaan soo koobo ka koowaad waa ilaahay kalaamkiisii subxaanahu wa tacaala ilaaha cirka iyo dhulka iyo dunida iyo wax walba abuuray ilaaha khabiirka ee caliimka dee hadda lagu yidhaahdo nin professor oo khabiir waxaa ku abaa hadlaya waxaa laga yaabaa dadka waxaa danaynaya oo dhamme inay yidhaahdaan ninkii dunida looga dambeeya maanta lecture jeedinayo loo soo xaadiro bimujarad waa insaan waxoogaa bartay maxaad u malaynaysa haddii lagu yidhaha rabu samaawaati walardi baa hadlaya oo adiga kula hadlaya innagu markaynu qur-aanka akhriyayno dad badani waxa laga yaabaa inay akhriyaan as a history book in laga waramo abubakar iyo abijahl iyo niman beri noola ayaa hebel baa waxaa sameeya ayadamaa soo degtay marka waxaynu uga waramaynaa qur-aan taariikhi ah laakiin ma aha waa ilaahay kalaamkiisii oo each and every person in this world gaar ula hadlaya qof waloo dunida joogaba toos buu ugu socdaa gaar buu ugu socdaa sida awgeed weynadiisa la weyneynayo ilaahay qur-aankan wuxuu ku soo dejiyey khayru buqcatin fi lard maka qaaru xiraabu ku bilaabmay dhulka meeshii ugu fadli badnayd waxaa la soo dejiyey bilaha bisha ugu fadli badan leh shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan bisha dhexdeeda haddana waxaa laga soo dejiyey habeenka ugu fadli badan leh 360 maalmood la tiriyo habeenka u fadli badan leh inna anzalnaahu fi laylati alqadr wama adraaka ma laylatu alqadr laylatu alqadr khayru min alfi shahr waxaasoo dhamme waxay tilmaamayaan sida loo weyneynayay waxaa lagu soo dejiyey rasuulkii rususha ugu fadli badnaa oo nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo dejiyey ummaddii umamka ugu khayr badnayd kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar idan waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan weyni ilaahay weyneynayo subxaanahu wa tacaala hadalkiisa si ay dadku ugu fiirsadaan oo ay si gaara ugu fahmaan idan waxaan leenahay kelmadda koowaad oo ku soo koobaynaa
قرآن كان أدركيسا وإلهي كلام كيسي إلهي كو أبوري الدنيا دا أبوري خلقي قرنا نسقوله آخرة أبوري جنية النار بله عالم كي خبير كي حكيم كا علم بدن خبرات بدن أقوام بدن يعلم السر وأخفى وهو البؤك وحبا أنا كقرصوني باطن كي ظاهر كي غيب كي شهادة سومي تهي عالم الغيب والشهادة وحم مغضية وحم مقنبؤك لها هذا الكيسي ويان باليري ومركا كوات سيدا وقيد با إلهي سبحانه وتعالى وحنا قلت الماما حتى ومضي الوسود يدا ومضي وفض بدن له يدا نحدى يدا مركا اللي اغانا كو سغا حبارسن با وصفض بدن باليري حديث البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه حيدنكو خير بدن كالقرآن كبرتي يا بري انت بدن ضدك حديث كامرك فسريا انه حيوقع قانون الفاديس وفق القرآن كان انتو قايبه يسقون ضدك سي بري لكن تعلم القرآن وكبل عليه وقفك القرآن كبرتي فهمي احكام كيسه حكم كيسه تاريخ كيسه وحقو قرآن فهمي ايه السيداء معناه قبل ذلك ندى ريدي سي اخري كريو اما قرأك هي اما كتابك اخرين هي ذكر السي بريه يعني الرسالة إلهي كلام كيساسي عدة انت فهمته هدنا بلشدك لأسي قد بسه أي أيدنكو خير بدن با ونبغ تلمامي عليه الصلاة والسلام سيدا قرآن قال الله قيمين يدراد ديد الفضل كيسا وحكو تصينيا نبغ عليه الصلاة والسلام وحولي إمام نمدين إنك إمامك إنه هرتاغن وقف إنه لنا إلهي إنه الله هذا أننا آمين تام كهذا بحيرنا يا الله إنه بري أدعو واجه إلهي سبحانه وتعالى يا القوم أقرأهم لكتاب الله ابن ربي أي النبي عليه الصلاة والسلام يا القوم ذاك واحد تكينيا نينك وأخرس بدن وفهم بدن وأقوم بدن إلهي كتابيس عند الصحابة وقت عندما واحد صابحي إن فهم كي قرآن كي كلا فقادان وضد بدن وقيف سنة أركو لكن أن دراسينين ويسكب دينين يبرتان محي قرآن كمعنيسة لكن عهد الصحابة أقرأهم كان أفقههم كوان قرآن كوغو أخرس كبدن له يقع هانا كوا وفقه علم بدن ويوم أنك إلهي هذا الكيس السيدة إيه فهمي أنت إلهي هذا الكيس قيبي بشك هيا هدنا معنيه سفهم سلي هو كاسا وعلم بدن ضدك سأوجد أي النبي وحده عليه الصلاة والسلام يا القوم أقرأهم لكتاب الله حديث مسلم ذاتك وحا تكين ينك القرآن كهو أخرس بدل بل النبي عليه الصلاة والسلام مالنتي وحده ذاتك بدن مسلمين تبنتين أدو مركي ذاتك الحبالي وحد عدين حبالها قاركود لبا صدح لو قرده حبال كليه لبا قف لو قرده أما صدح قف لو قرده حتى حباشة وحو النبي عليه الصلاة والسلام وقدموا أكثرهم قرآنا سوك القرآن بدينوك له الرئيسية لك القرآن كبدن لها له الرئيسية كاكا قرآن كيرنا محي سكن مانك هالنغضة قفك الله بعد حباشة لو قرده وحصلنا وحي نقول المامنا إنه إن يركت المامنا قرآن كي فضل سمك هرين وينام موضوع نصوص بدن أو قرآن حديث وقصة أررتي لكن كلمة ديدكم الصعطة فضلك وحن رباولنا تلمامه إلهي كتاب كي سوينين توب هيا إنه أنت بدن وينين تسون وينينه ما الحد يقولنا بورك كيل علينا لا يدهضر دولك حدينا صح أنتوا بوا صح توراة مركي سوقاتين يهودي ومسألة النبي وخباري توراة مركي اللودي بيوحوري كان وحلودي وبركين بيو كاننا وطوراة بشكا صاري توراة محرفة هين مركز لديدين ودولك ديغو إذن إلهي كتاب كيسين دولك الله ديغو ما هو إلا شرفو اللي وينيا لكن تنو دم بيكي انجاجنت ووينين أن وينينتي اللي الربي الله صعوني وشيء قال لبعض waxaan leenahay quraanku waa mucjisadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay jiritaankiisa waa casriga daba waxaad maqlaysaa dad ku murmaya ilaahay jiritaankiisa iyo ambiyada jiritaankooda iyo nabi maxamed nabinimadiisa waxoo dhan isaga cadaynaya looma baahna falsafo ka baxsan iyo aqoon kaloo ka baxsan
diin wixii u ah isaga u marjaca. qur-aanka ka warramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala adilada caddaynaysa wujuudkiisa tiritaankiisa. qur-aanka ka warramaya adilada caddaynaysa aakhiro janno iyo naar. qur-aanka ka warramaya adilada caddaynaysa rususha iyo jiritaankooda. weliba wuxuu u caddaynayaa si loojika. markaan leeyahay qur-aanka caddaynaya, nebi maxamed lama odhan calayhi salaatu wasalaam gaaladii wakhtigiisa la joogtay lama odhanin falsafo kale intaad u akhrido markay ku rumeeyaan qur-aanka u sheega lama odhanin. ee waxaa la lahaa qul markay shubha keenaanba ilaahay baa ka jawaabayay sidaa ku dheh sidaa dheh. idan qur-aanku shubahaadka la hayo oo dhan inaad adigu fahmi weydo waa dhici kartaa saad ugala soo bixi lahayd. laakiin waxaa laaliya waxa shubha bini aadamu hayo atawaasahu bihi baa ilaah yidhi. bini aadam intuu soo jiray intan shubahaadkana way soo jireen isaga ka wada jawaabaya. isaga ka jawaabaya. saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim. kuwii mucjisooyin iyo wax doondooday oo miyaanay ku fillayn baa ilaahay leeyahay inaanu kitaab kugu soo dejinay korkooda lagu akhrinayo. walidaalik haddaad rabto cid gaala inaad qanciso waxba ha isku dayin adigu inaad logic iskaaga isticmaasho. qur-aankaasi wuxuu sheegaya u sheeg. hadduu afka garanaya u dhiib, haddii kale kitaab translated oo wax ka sharxaya u dhiib. ilaahay isagaa adiladiisa caddaysanaya, rusushiisa, diintiisa. adilo uma baahna bini aadam, kanbay ku taallaa. waa kitaabka qur-aan wuxuu la hadlayaa min layman ilaa keena ugu khabiirsana professorka ah. waa iskaga mid. ilaahay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir. ilaahay wuxuu ina leeyahy miyaanu alle garanaynin cidduu abuuray isagoo latiifu alkhabiir ah. ilaahay waa ogyahay bini aadamku wuxuu u baahan yahay u garanaya. qaabka loola hadlayo caqligoodu la hadlayaa, qalbigoodu la hadlayaa, maankoodu la hadlayaa. isagaa inaf ah. wuxuu u baahan yahay ciddaad diin ugu yeedhayso inaad qur-aankan u dhiibto. haddii aanu luqadiisa garanay inaad wax uga sheegto. haddaad translation helayso inaad siiso tidhaahdo akhri. wixii midmadow ka gala haddaad u sharxi karta aad u sharaxdo. si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankani mucjizaynu iyo waxa ugu filan. low kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira baa ilaahay. cid aan alla ahayn hadduu ka iman lahaa qur-aanka kani isbaraanbarin badan iyo isburin badan iyo iska horimaad badan baa lagu arki lahaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. kitaabka qur-aanka ah ninka saynisyahanka wuu qancinaya, oo ninka dhaqaale ka warramaya wuu qancinaya, oo ninka siyaasiga wuu qancinaya. oo kullu fan kullamaa aqoontaadu sii badataba fahamkaad u yeelanayso baa sii badanaya. kullamaa aqoontaada kale nolosha aad ka taqaanaa ay badato fanigay doontaa ku saabsanaato haddaad qur-aanka akhrido usuusheedaad arki doontaa. si awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa oo dadka miyaanu ku filayn kitaabkii aanu soo dejiyey. hadduu ahaan lahaa kitaab cid kale maanta dunidu ninka fanni ku takhasusa ee buug fiican ka qora oo la bumbuuniyaa waxaa la yidhaha waa professor hebel oo kitaabkiisa siyaasadda waxaa kaga warramaya ama dhaqaale waxaa kaga warramayo ama waxaa kaga warramaya waa buugga ugu fiican. waxaad qiyaastaa kitaab uu la yimi rasuul ummiya qof aan waxna qorin waxna akhrinin oo waxa bini aadamku u baahay oo dhan ka warramaya ma mucjizo ka weyn baa jirta. kitaab uu sito haddii nin wax aqoonin wax soo qorqoro waxaad odhan lahayd de waxbuu soo bartay oo waxbuu garanayaa. laakiin kitaab aakhire ka warramaya oo adduun ka warramaya oo cirka ka warramaya oo ilmaha caloosha ku jira iyo atwaartu mare ka warramaya oo wax kasta ka warramaya oo haddana cidda sidata ay tahay cid aan waxna qorin waxna akhri karin. aduu ma u malaynaysaa qof aan ha lagama qoro qof aan waxna qorin waxna akhrin inuu kitaab qori karo? se kitaabku qoraa siduu ekaan lahaa baad u malaynaysaa haddaad nin reer miyiga u yeedho tiraahdo kitaab baan kaa qoraya iyo bal sheeg muxuu ka warrami lahaa baad u malaynaysaa? kitaab noloshoo dhan maamulaya inuu yahay. taasi waxay caddaynaysaa nimankii gaaleed ee nebiga cahdigiisa noolaa iyo kuwa maanta nooliba markay u taag waayaan waxay isku dayaan inay igu noorgareeyaan aan la akhrinin laga fogaado. rag waaweyn oo culamaa waxay ku tijaabeen ama professor rayn markay
arkaan inay qadiyadu ku caddahay inay iska fawziyaan. kuwii nabigana wakhtigiisii noolaana maxay yidhaahdeen? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. markay xoog kala waayeen waxay yidhaahdeen war ha dhegaysanina, haddaad dhegaysato wuu ku duufsanayaaye jas dhagaa ka xidho, oo haddaa aragtaan isagoo akhrinaya walgaw fiihi ku buuqa yaa la isfahmi lacalakum taglibuun bay yidhahdeen, waxaa laga yaabaa inaad xoog badataan. idan shayga labaadaan tilmaamaya markaa wuxuu yahay kitaabka qur'aanka ahi marka caqiido ilaahay, diinta, malaa'igta, rususha, taariikhdii dadkii hore, waxaa marka laga warramayo jannada, naarta, isagaa daliil ugu filan. aayaat lanfusi walaafaaq buu ka warramaya. aman yabda'u alkhalqa uma yuciidu waman yarzuqukum min alsamaa'i waalard ailahun maca allah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya war cirkan iyo dhulkan iyo samadan iyo waxan yaa abuuray. haddaad system aragto, wax nidaam leh, system leh, design wuxuu ka muuqdo, there should be a designer. sudfa iyo maxaa la yidhahaa by chance iyo coincidence ma sameeyaan, nidaam kama soo baxo. that's why maalan ninka saynisyahankahi muxuu wax u baadhaa? caqiidu rumaysan yahay dunidu inay systematic tahay. waayo waxa systematic oo qurad research ku samayn kartaa. haddaad rumaysan tahay biyuhu marna inay 20 degree ku baylgaroobayaan, marna 100 ku baylgaroobayaan, waa iska by chance tahay, cilmiba ma suurtagale. laakiin cilmiga baxfiga waxa ka horeeya bay yidhahdaan caqiida. caqiidadaasoo inaad ku qanacday dunidu inay systematic tahay, markaasay suurtagal tahay inaad tidhahdo systemkani siduu shaqaynayo aan wax ka ogaado. science oo dhammi waa systemkaa shaqaynaya dunida ka jira. inaad isku daydo inaad wax ka ogaato, hadhowna aad isku daydo inaad taqliidiso, develop garayso, aadna bal inaad sidii oo kale wax u samaysan kartid aad isticmaasho. haddaana taa ku qanacsanayn, marka hore aad ku qanacsantay wuxuu inuu fawdo yahay, no science atol ma jirin. ilaahay wuxuu ina leeyahay khalqiga allaha abuuray haddana soo celinaya, ilaaha cirkan iyo dhulkan ba idinka arsaaqaya. ailahun maca allah qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. daliilkiina iyo buruufkiina keena haddaa wax kale rumaysantihiin, hadduu jiro wax kale. waxaan ku soo koobaya qodobka labaad markaasi, qur'aanku isagaa daliil isugu filan in la fahmo buu u baahan yahay. walidaalika ilaahay nebiga wuxuu ku yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. isaga kula dagaalgal baa ilaah yidhi, qur-aanka kula dagaalgal. hadaad u baahan tahay, wax doodi ka taagan tahay, wax muran ka jiro, wax laga hadlayo diin ku saabsan, uma baahnid wax kale. kitaabka qur-aanaa jawaabtiisii ku qoran tahay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira. isaga ku dagaalgal. kaasina waa qodobka labaad. qodobka saddexaad isnaan soo koobaya waxa weeyaan inaynu garanno kitaabkani inuu yahay ilaahay kalaamkiisii, garanno inuu yahay daliilkii ama mucjisadii ama burhaankii ama caddayntii, bayinadii diintan xaqnimadeeda iyo midnimadeeda tilmaamaysay. waxay isweydiin leh muxuu ka hadlayaa markaa? intaa kadib muxuu ka hadlayaa? kitaabkani wuxuu ka hadlayaaba in layni muxtawaagiisu waa manhaju xayaa. waxa uu tilmaamaya qofka bini aadamkee dunidan jooga siduu u noolaan lahaa, ayan kaana mustawaaka alcilmiy. meeshaa doonto heerkaaga aqooneed, garaadeed, waxbarasheed ha joogo, laakiin waa guidanceskaagii tilmaamayay noloshan sidaad ugu noolaan lahay. si kale haddaanu idhaahdo waxa weeyaan waa jadwalkii yowmiga ahaa ee maalintaada. adiga waxaa laga yaabaa inaad buuggaaga waxyar ku qorqorto, maanta maxaa shaqadii taalla, maxaan qabanaya. noloshaada oo dhan shaqadii kuu taallay buu tilmaamaya, waxaad qaban lahayd, sidaad u noolaan lahayd. wuxuu kaaga jawaabayaa baahi kastoo aad qabto. sida awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wanazalnaa calayka tibyaana likulli shay, wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shayin wahudan waraxma
وبشرى للمسلمين. إلهي القرآن كما كنت سفيني وحكت المامة يا نبي وحن كنت سودة جني كتاب تبيانا لكل شيء تحتاج إليه عبينا يوح كستادو باهنتي نلاش وحيد هذا ما لبا قيبوت قيب إلهي وح عقلي نسي إنه بادنه وهرو مرنه أفعاشنا إلهي خلقي جيسان سينو باد لهي all sciences wuxuu sameeyaa waa istikshaaf waa wax jiray ayaad siduu u shaqaynaya baadi doonaysaa aqoonta bini aadamku waa inta aqoonta bini aadamku wax cusub ma samayso waxaan jirin ma keento walow atamna ha noqdee laakiin waxay raadisaa wax jiraa siduu u shaqaynayaa markaad fahamto siduu u shaqaynayaa la isweydiiyaa markaa sidee looga faa'iidaysanayaa yani science oo dhami waxay dhahdaan waa space and time unbuu yareeyaa waktigaa waxaa lagu qabanayay see loo yareyn lahaa gaadhi dayuuro tareen waxaanaynu fuulaynoo dhan mishiin wax sameeya warshad wax soo saarta waxa kan waa wixii manualka loo qaban lahaa wakti dheer qaadan lahaa see timekiisa loo yareeyaa waxa labaad uu ka fakerana waxa weeyaan spacekiisa see loo yareeyaa meesha uu qaadanayo marka hore mashiinadu markay soo baxaan marka hore intaasay wada laaleegyiin xajmi ballaaran wuu sii yaraadaa hadhow baa la ydhaha wax yaroo intan leeg baa qabanaya shaqa intaasiya kuwan imanka dee computerka inoogu logical gateska computerku maxay taiwan baa hadda u horeysa 3 nanometer bay marinayaan 3 nanometer inuu processorku ahaado soo duuduub kuwa caqligaa loogu talagalay waxa uu qur-aanku kugu hadeynaya kuwa wixii khuraafaat iyo waxaan jirina inaad ka tagto si aad really u waajahdo oo shacwado iyo falfal iyo alraafays iyo waxaasoo dhan bini aadamku adeegsaday war waxaas waa khuraafa la yidhi xagga iska dhiga wax baadha waxa aan kuwa ahayn ee ah bini aadamka dhaqankiisa wixii ku saabsan bini aadamka dhaqankiisa wax ku saabsan waa maxay waa hadduu dhaqaale yahay hadduu science yahay hadduu taariikhi yahay hadduu caqiide yahay qofka bini aadamka iyo siduu u fakerayo iyo siduu wax u qabanayo wixii ku saabsan usuusheeda ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwa qur-aankani wuxuu idinku hanuuninayaa ta u toosnaan badan even though xataa hadday 2 dariiqoo meesha loo maraa jira pointkaasi aad u gaadho hadday 10 dariiqoo la maraa jiraan ka ugu dhow waayo ilaahay bini aadamka wuu karaameeyey lama rabo inuu bini aadamku la noqdo jiirka wax lagu tijaabiyo mabaadi'da dunida waxay bini aadam ka dhigtay jiir wax lagu tijaabiyo 70 sane mabda lagu wadayo hadhow baa la odhanaya wuu fashilay waxba kama jiraan way la bedelaa tala shuuciyad 70 years baa dad bir iyo xadiid lagu maamulayay hadda la yidhi waxba kama jiraan aan iskaga tago waxaa la mid a raasamaaliyad waa lagu waday laakiin haddaa loo taaglaayay meeshii laga bixi lahaa isku soo duuduub bini aadamku tijaabaadkan uu bini aadamka ku wadaa ilahay wuxuu leeyay bini aadamka tijaabada ka daaya anaa hanuuninayo ariiqa u saxsan u tilmaamay adiga waxaa lagaa rabaa inaad marto ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارددوا إلهي لي قد جاءتكم موعظة وانا حق يدين كتمي الله هي الشفاء لما في الصدور وحكا ستوب بنا آدم كورور قليا وهي لقاقع عافنا لي وحكا ستوب جهلي كان وحكا ستوب ورور قليا نظام كستوب وكشك قبوه caafimaadkiisi kabuu ku jiraa baa ilaahay leeyahy hanuunku isaguu ku jiraa idan kitaabka qur'aani waa kitaabka u caqiide laga qaato waxaad rumayn lahayd iyo tasawuraadkaaga waa kitaab shareeco laga qaato qaanuun basiska nololeed there is no law in this world isku soo dar xataa kuwan yaalla diin bay ku salaysan yihiin ama diin qaldan ha noqoto ama diin saxan ha noqoto ama diin qaldan ha noqoto
أما الدين سحنها نغطو لكن إلهي وحليه سبحانه وتعالى وحي أقوم منا قانونا الذي سودة جنية شريعة قانون كيدو بناء آدم لماذا يكون على سنتي ويثبت بدل ساء وقد ما دام أسأل كبناء آدم كيثبت دليل أما قانون كبناء آدم شالين حلال من نقنية ما أنتنا حرام من نقنية صاد من واجب من نقنية مثلا نمك تريد حقوق البني آدم وخلينا أنت وذي 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 وحد كان لنا فيه شالي واحد دنبيها بل دي اسم بوكا كوغرا دي اسم بوكا وبوكا ير دخاتيرتان سايكاتري ير الراي waxaan ku shaqalay booka yar haad bookooda ay wax ka baadhaan xanuunada ku qorra ee uu arkayeen mental disorders inay ka mid la daweeyo 1972 wixii ka horeeyay xanuun la daweeyaa buu ahaa iminkana waa xuquuq bini aadam u kala fiirso intiisu jiraan homosexuality 1972 wixii ka horeeyay DSM bookska wuxuu ku qoraa inuu yahay xanuun mental disorder oo ah in la daweeyo oo way loo mara leh iminkana wuxuu soo guuray maxay xalaal 1919 kii Mareykanku wuxuu qaatay khamradu inay xaaraan tahay waddanka dhan waa laga mamnuucay 15 sano ama 14 sanadood buu saaha 1933 imkana waa xalaal ma cilmi cusub baa ka soo koray maya waa loo taag waayey idan humanity isma bedelo biniaadamnimadu isma bedesho therefore mar haddaan biniaadamnimadu isbedelaynin qawaaniinta asalka ee biniaadamka noloshiisa ku saabsan xaaraantiisa iyo xalaashiisa ku saabsan inaan isbedelin inay wax jira noqotaa siiba raggan dambe uu biniaadamku xad gaaray إذن عقيدة كتاب كان بيكوت الله شريعة يستجي كوت الله أخلاق ethics يا morals بين هذا كوحة وكل رقمه إنك هي أخلاق وسوشي سقران ككور رمية وكور رمية تاريخ دي بني آدم كوكوبا بني آدم وراكو كور رمية مثلا نبي يا الرسل يا الضد وناكسن يا الصالحين وكلا كور رمية طغاة يا فاجرين يا ديكتاتورشيب يا هبار قبيل دوني صامرة وكور رمية تاريخ دي بني آدم كآدم لغا صوب الأبيه إبليس وحي نحمري إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوحي نحمري وتاريخه سيكون سايسا كوسينيا وحكوسينيا هل كان لغو تشابي هل كيسي لغو قوليستي and that's the point تاريخنا وحلقة ربا وينتا وين أدوغاتا محال لغو تشابا سياد الرئيسة إلى لسو وين أدوغاتا محال لغو قوليستا سيادو سي استعمالي كارتو إذا تاريخ دي بني آدم كوكوبا بكوسينيا وحكو الدراسة يا مستقبل كصوص سعودية وحدعي دورة هدي تيجيري الدبدين يا حباشي مركز الوجهه يا آخره يا جنة يا النار يا واحد كتب بيوت المامية وحقراكو كور رمية يعني عدالة مقالة سياسة علوم اجتماع بل إشارات كونية في الأنفس والآفاق آيات كقرآن كون كور رمية كن آيات دوي كبدين بيدا هذا آيات كأحكام تكور رمية أحكام شرعية وحاسمية وحاسمين آيات كور رمية وحكبدا آيات كيونيفرس كور رمية انتين دراسين ولنظروا ماذا في السماوات والأرض وإلى إليه والبلعك ينو كانوا فرصة إيجا انتين نو فرصة انتين نو علم بارس سمين انتين دراسين إله بين أمر يعني نو إيجنو أو فرصة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ملك الصعدة وتاريخنا ملك كيه ليسان جيولوجيسكي واحد ما حيسمع إياه ليه يرسك الملك يا وحمد الله بعدا أنت أصلينا وقت أساس وهانشري وقت عيك أبو هانشري جيت كنين تنو سنوشري وحكي إيه ملك الصعدة بقول يو هذا آثارتي بني آدم إذا وحي نؤبا هنا يوردن بك ورمية وحن أرنكرنا بتعبير آخر وأكبر موسوعة على الإطلاق في هذا الكون وموسوعة إنسايكلوبيديا وين إنه الله شعورنا أسوش هذا قاضي محوكو قاضي ما يساقوس كهذا القراءة مايا إلهي حولي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وحسودة شيء إله السرطة كوكرسون عرئي بالبؤك إله سبحانه وتعالى سرطة عرئي بالبؤك قرصون معي أقبى سودة شيء إذا ما حلينا كتاب كان هو منهج حياة
waxaynu u baahannahay haddaad qof tahay iyo haddaad qoys tahay iyo haddaad qaran tahayba inaad isaga u noqoto eegto muxuu kuu sheegaya muxuu ku faraya inagu caqli ah in laga barakaysto umaynu u qaadanay halkaa dhig akhriyo ka barakaysto dabeetana iska dhig waxaad la mid tahay qof haraadan oo haddana biyo xambaarsan ka waran haddii biyo lagugu raro haddana aad haraadantoo leedahay haraad baa baktinaya biyona waxaad sidaana waa biyo kuwii yuhuudi iyo qoladii hore ilaahay ceebeeyey maxaa lagu ceebeeyey asfaar bay sidaan maxay sidii ximaar baa la yidhi dameer kutub sida ayaa lagu dhigay kama gedisnin wixii iyaga lagu ceebeeyey waayo xal oo dhan halkuu yaallaa laakiin wuu oolayaa waynu ku barakaysanayna halkaa haynoo sii yaallo wixiina kalena iska walaaqanno haddaynu qofna iyo haddaynu qoysna iyo haddaynu qabiilna iyo haddaynu qaran nahayba dee waxay gaalada u raaci weyda haddaad tidhahdo oo adigii muslimka ee rumaysanay haddaad raaci weyday ma qof kalead rajaynaysaa inuu ku dhaqmo aday ahayd inaad gurig saamul noqoto oo bini aadamku kugu daydo oo u arko bini aadamku wayna ku garaad leh hadduu jiri lahaa system si dhaba ugu dhaqmaya dadku way arki lahayd benefitka ku jira laakiin haddaan dadkuba ku dhaqmaynin ee baraka loo haysto waa dagaalamaynaa haddii wax laga sheego socaka maaha muslimiinta o dhan waa kacayaan qur-aankiiba wax ka sheegay qur-aanka oo haddaad ku dhaqmi weyda adiga wax sheegaaga ka war daynan qur-aanba uu dhankiisa u jeedin idan waxaan leenahay kitaabka kani wuxuu u baahan yahay inaynu rafkan ka qaadno rufuuftanu saaray intaynu ka qaadno inaynu baranno oo akhrino wixii dani kaa gasho waa la gartaa reebana tiraab hay af carabi ku qoray oo lama yaqaano imise afaan hooyada ayaa aabahatoona kuu dhigmad baratay oo hungurigu kaa gala wax walba wixii hungurigu galo waa baranaa sawaaxilaa barateen ingiriisaa barateen kabaa barateen waayo dantaadii baa gashay bale maanta haddaad shirkad la xidhiidho oo ay kuu soo dirto waraaqihii shirkaddu af jarmal ku qoran legal translation baad raadinaysaa si aad u hesho sharciyan marka lasoo translate garay haddana si aad gunteeda u fahamto ayaad lawyer u tegaysaa leedahay bal hadda bahashaan akhri adigoo af ingiriisiga garanaya waxa ku qoran baad waxaad raadinaysaa bal meel lagaa qaldi kara inay ku jirto iyo wax kale si aad isaga hubiso contractgan isu qofka bini aadamkii wixii dani ka gasho ugu bartaa af carabiguna waa afafka dunida ugu sahlan uguna qadisan haddaynu u rumaysannay in daniinagaga jirta kitaabka kan waa baran kari lahay saynu u barannaba ma aha inaynu wada khabiir noqonayno khabiirnimadu fanni waliba khabiirkiisaa la weydiiya akhiiran laakiin at least fikradda guud aynu u baahanaynu heli lahay maanta markaad dhaqaale wax ka baacmustarayso waxaad ka baacmustarayso aragtiisida guud waad haysaa waa laga yaabaa kaaga khabaarsan aad masaa'ilka qaarkeed weydiinaysaa inay jirto laakiin waxaasi siduu u shaqeeyo sida loo raadceeyo waad guriga sidiina nisbad ku leedo waad soo haysaa idan kitaabka kani inuu daboolnaado masaajidda yaallo oo keena ugu fiican uu jimco akhriyo ama uu waxoogaa wardiya ka samaysto oo uu yidhaahdo qur-aanka maalintii anigu jis baan akhriyaa dee jis aanad fahmin baad akhridaa jis rabbi kula hadlayo oo waxa lagu sheegayana aanad garanayno rabbu samaawaat baa kula hadlaya haddana ma garanaysid ilaahay wixii uu kuu sheegayey gartay sanad laba saddex inay saas kugu dhacdo ka warran nin weligiiba akhrinayay oon haddana garanaynin nin weligiiba akhrinayay oon haddana garanaynin waa gharaa'ibta muslimiinta muslimiinta ka mid ah wuxuu lahaa kitaabka dunida loogu akhriska badan yahay buu yidhi waa qur-aanka waayo dunida imse qofoo muslimaa tukada oo faatixa un akhriya ugu yaraan oo birabbi naas akhriya qul walla akhriya waxay yidhahdeen waa buugga loogu akhriska badan yahay laakiin waxaynu odhan karnaa mar labaadna waa buugga loogu faham daran yahay buug dadkao dhan ba akhrinayo oo cidana garanaynin waxa ku qoran dadku waa wada akhrinaya waxa ku qoranna lama garanayo waxay leenahay haddaynu rumaysanay inuu yahay manhaju xayaa waxaynu nolosheenna ku saxan lahayn adigoo qof keliya abaa noloshaada ku saxanaya adigoo qoysa baad ku saxaysaa adoo qabiilaad ku saxaysaa adoo qaranaad ku saxaysaa idan waxaynu u baahanay inaynu si fiican u fahmo weliba in la akhriya way fiicanta waayo ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahy
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من haddaan buur ku soo dejin lahayd oo ay fahamto way kala daadan lahayd baa ilaahay leeyahay hadalka alle iyo wuxuu ka warramayo markay fahamto walow anna qur'aanan suyirat bihi aljibal aw quطicat bihi alard aw kullima bihi almawta bal lillahi alamru jamiica dii qur-aanka loogu talagelay lahaa baa laleeyahay buuraa lagu tagsiiyo ama dhulka lagu gooyo ama meydka lagula hadlo haddii loogu talageli lahaa lakaan wuu ahaan lahaa لكن قلوب البني آدم كأنك حودي ومع ذلك عدة لغة أخرية تأثير بكو سمية هي عدة أخرية سوا ولذلك بقى أحمد القاضي بروفيسور كيلو ريتشري مسلم كان يتاي إن خبير مسلم هو إن ودنا ذا مريكا كده جنان شري وها نختار كوان بدلا ودناها يسمى بدي يتن مركي وبنشن كقالي ونختار ما دي شو شيء ayuu dhakhtarkii ugu weynaa uu ka shaqaynayo agtiisa wuxuu ka furtay meel uu tajaarib ku sameeyo wax ku daweeyo laakiin bishart dadka loo keenaya waa inuu noqdo ciddii ay dhakhtarku ka quusteen meeshaan dhakhtarka weyne ku xiga ciddii laga quusto adiga kasar baad qabtaa bil baad noolaanaysa adiga kan baad qabtaa marka cidda yidhaahdaan waa in la iska geeyaa meelaha dadku uu ku baxnaaninayo intuu dhimanayo yidhaahdo xagga u soo wareejiya kuwaasaa loo keenaa kuwaasuu tijaabooyin ku qaaday oo xabatu sawdaa iyo qur'aan iyo kan ku akrinayay kuwaa markuu qur-aanka ku akhriyey tajaaribtay ku qaadeen dhammaantood wuu raadeeyey xataa kuwa aan midh ka fahmin buu ku akhriyey qaar muslimuu ku akhriyey qaar gaalaaba ku akhriyey qaar aan af carabiga aqoon buu ku akhriyey xataa markii dambe waxay dhahay war mala waa qaabkan loogu gunaynayo qaabkan loogu heesayo qur-aankee af carabi bay keeneen gabayo oo saan u qoran oo lagu heesayo la tajwiidinayo saasay dhahay ku akhriya bal tajribada saynu u eegno ingiriisi lagu heesayo ku akhriya bal af kasta ama hees kasta oo qofkan lagu akhrinayo raadku samayn karo qur-aanku raadku sameeyey wax sameeyey ma jiraan ilaa uu qoraallo dhan ka sameeyo buxuufa waxaan uga dan leeyahay yees qur-aanku raad buu leeyahay taathiir buu leeyahay laakiin waxa dhabta aynu rabnaa ma aha inaynu ajar unu akhrisano ajar badan buu leeyahay akhriskiisu sax weeyaan xaraf kasta 10 ajar buu leeyahay ma aha inaynu litabaruk inaynu ka barakaysano shayaatiinta iskaga erino keena jinku dardara jinka kaga saaro intaasuna aynu akhrino laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan lilihtidaa alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin walihtidaa hudan wa rahma للمؤمنين للمسلمين لا إله إلا الله ورنين كهنونه أيها الأحبة عم كسوكوبة يا آيات القرآن إلهي لي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تتكبر بالقرآن كأنت ويني بويني دي وحي كلكتي وحن لفهم إنه يهاي وكلام مركب وحول بصورنا ما يستطيع القرآن كالآخرية إلهي نوح كليه ولقد يسرنا القرآن للذكر والقرآن كوان أفديدي إن هو أنتوبه فهل من مدكر با إلهي وهو أنتوبه يا ملادي القرآن كان هو so simple هذا دخل إنك توجيهيات أتكو هنونتي فهل من مدكر أتكو هنوني سملادي أيها الأحبة وقت الصلاة دي قاعد شخر ورغب بحيا حنقدر لي وكتاب كقرآن كأين دحيا الله وإلهي كلام كيسي ومعجزة الدين تتنعدين سينا سحتهاي ومنهج كين نولولات إلا ينوغو تلقى لين إنو آخرية أدوم بكل بانو صدح دواي سقاء وانا كارفك صارا ميل والبين ويالا وانا كفايدي كرنا هدين كنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم